دولدي والشعب دمرئي ورق دولدي والشعب دمرئي ورق سومالي وي اسكو دوبانتو دانلو داداليا سومالي وي اسكو دوبانتو دانلو داداليا ديديو شقادا لو داريري داوانايو ديديو شقادا لو داريري داوانايو ودالكاغي دقون يوهو ودادكاغي دبال يوهو ودالكاغي دقون يوهو ودادكاغي دبال يوهو ودقنيني 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 استريلو دادك سورا ودقنيني 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 استريلو kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka horumarka dalka oo uga barateen ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliya xaruntiisa magaalada London barnaamijka horumarka dalka waxaan ku soo qaadanaa oo aan jecelnahay in bulshada Soomaaliyeed la wadaagno waxyaabaha dalka lagu soo kordhiyo waan jecelnahay in qof walba uu arko dalkiisa wax lagu soo kordhinayo maanta ka dambeys horumarka la gaarayo iyo quruxda uu leeyahay dalkeena Soomaaliya aan jeclaysanay in ummadda Soomaaliyeed ee adduunka daclihiisa ku kalnoon aan la wadaagno waxaan jeclahay hadduu Ilaahay raali ka noqdo bal magaalada Muqdisho dekadii magaalada Muqdisho inaan dadweynaha aan la wadaago barnaamij laga soo diyaariyay oo qof walba oo Soomaalinimo ku jirta ama Soomaalinimo dareemaya uu ka helayo sida ay u eg tahay dekadii magaalada Muqdisho dad badan ay isleeyihiin abooyo dekadan xagee ku taala waxaan noo soo diyaarisay muuqaal aad u qurux badan oo laga soo diyaariyay dekada magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir wariyaheena Nishaad Bashiir Axmed daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ka sameeyay dekada weyn ee magaalada Muqdisho isla markaana aan uga hadlano horumarka ay sameysay dekada caalamiga ee magaalada Muqdisho dal waliba waxa uu leeyahay goobo lixaad oo dhaqaalihiisa oo uu ku faano Soomaaliya ayaa qayb ka ah dalalkaas oo Ilaahay ku maneystay dhulkeeda kheyraadyo badan marka aan ka eegno dhanka dekada waxa ay leedahay dhowr dekadood oo halbowlo u ah ganacsiga dalka oo ay ka mid tahay dekada weyn ee magaalada Muqdisho oo xudun u ah dekadahaasi isla markaana gaartay horumar aad u ballaaran waxayna ka mid tahay ilaha uu dakhliga ugu badan ka soo galo dawladda Soomaaliya sanadka markuu ahaa 1975 shirkad laga leeyahay dalka Talyaaniga oo lagu magacaabo Imbergilio ayaa dhameystirtay dhismaha dekada Muqdisho iyadoo xilligaasi wixii ka dambeeyay caalamku uu aqoonsaday dekad shaqeynaysa oo kamid ah dekadaha caalamka waxa dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2014 hawlaha dekada magaalada Muqdisho la wareegay shirkad ka shaqeysa horumarinta dekadaha oo laga leeyahay dalka Turkiga laguna magacaabo Albayrak taasoo xilligaasi ballan qaaday dhismaha ballaarinta dekada Muqdisho iyo horumarkeeda وإنها مهدس تدال دير دراسة دير كدب الباب بدن أيام وقرعني وحان هلي كمبنياش عالم ككمدة نجا ساعده حبك الدكدين وقال لهيد ستاندر عالمية وانا لو سعطان هاي مدة بشند الله تدق السمن انت كدي كمبني البير الله ضحاي وكهول قرين كمبني اسمه وحبضن يفوزي آمين هذا لقى آمين سنه
dekedeena ama badeena in aanan lagu soo dhiiran karin na way fududeynaysaa si caalamiya in ganacsigeena oo suuqyo cusub oo Yurub leh oo Asia leh oo America leh inaan ama qaaradaha dhan aan u bandhigi karno badeecadeena ganacsi aan suubsan karno dadkeena loo faafin karo si dadkii ugu dhiiradaan inay baarihi iyo xoolihii iyo wixii annaga aan u lahayn resource ahaan inay ka faa'iideystaan. dekada ayaa waxa ka socda howlaheedii caadiga ahaa ee raridda iyo dejinta ee dekad lagu yaqiinay iyadoo marsada xamar markiiba ay ku soo xiran karaan ilaa iyo 6 markab oo ganacsi. dhanka dhoofka waxa marsada laga dhoofiyaa waxyaabo ay kamid yihiin liinta ama qaarka muuska xoolaha nool iyo waxyaabo kale kuwaas oo dhamaantood baa dhulka Soomaalida laga helo iyadoo ganacsiga banaanka ka yimaadana ay u badan yihiin gawaarida kuraasta raashinka dharka shamiindada iyo kuwa kale oo badan. badeecada wadankeena gudihiisa zaraacada ka soo baxdo hadii aan lahayd beeraha waxa ka soo baxo hadii aan lahayd xoolaha waxooda hilibka oo kalluunka badeecadaas kala gudsan ee dibadda aad looga baahan yahay inaan u faahfaahino u fududeyno in ayaguna dib loo dhoofiyo oo dekadu haday qalab yeelato waxa fududaanaysa in dib u dhoofinta ay timaado saas daraadeedna dhaqaaleena dhan kale oo asagana uga kabco. horumarka ay dekadu gaadhay waxa kamid ah in la bedelay qaabkii hore ay ku shaqeyn jirtay ahaa in maraakiibta ama doonyaha sida ganacsiga ay ahaayeen kuwa si caadi ah loo soo raro mararka qaarna ay ku qoyi jireen biyaha halka haatan la gaaray in laga dhigo hab container oo lagu keeno waxyaabaha ganacsi ee ka soo degaya marsada xamar. waxa shaqeeya wiisha suuro galiyay in durba la dejiyo containerada ay ku jiraan alaabaha ganacsi ee lagu soo raray taasoo suuro galisay in markadka ama doonta ay dhaqsi ku laabtaan halka kolkii hore ay muddo joogi jireen taasoo caqabad ku ahayd in maraakiib kale soo xidhaan inta la dejinayo. After that, second crane arrives, our container vessel operations will be speeded up a little bit. waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in dhammaan kaargowga la keeno dekada uu noqdo mid containeraysan taas oo hawsha ka dhigaysa mid fudud. ilaa iyo hadda waxaan dekada ku maalgelinay lacag dhan 10 milyan oo dollar. tusaale aan ku siiyo muddada 4 bilood iyo barka ah qarashka na soo galiyay waxa uu gaarayay 11 milyan oo dollar. 6 milyan oo kamid ah dawladda ayaan siinaynay halka shanta kalena aan dekada howlaheeda aan ku celinaynay. Although our income was not more than 5 million, we have already spent it more than 10 million. sharciga markabka taagan gudaha badda waa in dadka uu u raran yahay ay soo bixiyaan lacagta canshuurta inta uusan soo galin marsada isla markaana uu wax wasakh ku shubi karin biyaha lana bixi karin kheyraadka ku jira badda inta uu ku sugan yahay. bu deniz Somalilerin. badani waxa iskala Soomaali hadii la wasaqeeyo ayaga ayay ka xumaanaysaa. waxayna joojinay maraakiibtii yoolida iyo wasaqda ku shubi jiray biyaha Soomaaliya. waxaan rabnaa inaan dekada Muqdisho ka dhigno sida dekadaha caalamka oo kale. International kurallar, uluslararası kuralları burada uygulamaya yavaş yavaş geçireceğiz. qaybta ugu muhiimsan ee ay ku shaqeyso dekada Muqdisho waa qaybta hagida iyo jihaynta maraakiibta soo galaysa ama ka baxaysa marsada oo ay ka shaqeeyaan hagayaal isku jira Soomaali iyo Turkiye kuwaas oo qabta hawsha ugu badan ee dekada ku shaqeyso. waxaan soo maray badda inta aan ka shaqeynayo bad shaqadeeda waxaan bilaabay 1980 dowladda dhexe markay jirtay xirfado kala duwan iyo maamulo kala duwan ayaa ka dambeeyay. muxuu ahaa maamulka Turkiga hadda oo Mustafa Umar ka yahay ayaa hadda muxuu ahaa dekada gacanta ku hayo. annaga waxaan nahay baayadadii maraakiibta soo daadahayso oo dekada ay ku shaqeyso oo dhaqaalaheeda
horumarinteeda waxqabadkeeda muhiimka lafdhabarka u ah waa pilotka dekeda muqdisho maraakiibta waxaan kasoo diyaa muxuu ahaa waxaa amra captain organ markay macluumaadka soo dhamaystaan oo u diyaargaroobaan in dekeda la soo geliyo annaga waxaan diyaarinaa in matoorkiisa uu diyaar noqdo in marka dekeda soo galaayo uu yahay mid safe ah oo aan dekeda dhibaato u keenin problem aan u keenin oo aan kusoo hubino marka ugu horeysa banaanka aan kusoo hubino asoo bad qabo oo ah seaworthless condition aan dekeda soo gelino si nabadgelyo ah isla markaasna markuu dhammaado aan ka bixino si nabadgelyo ah marka dekeda muhiimadda ugu weyn oo loo baahan yahay in la helo dekeda in macluumaad waxqabad fara badan in loo sameeyo qoladan turkiga captain organ captain mustafa maareyka ah way dadaaleen wiishash waaweynay keeneen maraakiib zamankan ugu dambeysay xilligii siyaad bare dowladda dhexe jirtay ayaa konteynerada imaan jireen hadda waxaa bilowday aan ku jirnaa ilaa muddo 5 bilood 6 bilood sanad ah maraakiibta konteynerada qaada oo sahasha inaysan dekedana ku daahin 10 maalmood 20 maalmood aysan joogin oo ay joogaan midka ugu dambeeya oo 3 cisho uu joogo qaybtani waa qaybta ugu muhiimsan uguna adag hawsha maarsada xamar waa qaybta jihaynta iyo soo xirista maraakiibta iyo doonyaha sida shixnada ganacsi ee ku soo xiranaya maarsada xamar waxaana ka shaqeeya shaqaale u tababaran hawshooda anaga waxaan nahay 5 nin oo pilots ah oo khabiiriin oo kabtanna ah aniga waxaan ahay waxa captain of long course ah pilot oo kaliya ma ihi shaqadayda maraakiibtan wadi jiray oo dekada caalami aan tagi jiray maadaama wadankii marxaladiisa ay xun tahay oo nooca tahay wadankii aan u faa'iideyno ayaan u joognaa waxaan raacay mid ka mid ah taagagii ay noogu deeqeen walaalaha Jabuuti ee loogu talagalay in lagu soo xidho laguna saaro maraakiibta inagoo u dhaqaaqnay markab taagnaa bartamaha badda kaasoo la soo xirayay waqtigaasi aan idinkugu soo bandhigno horumarka ka jira dekada
marsada waxaa ka shaqeeya xoogsato badan oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta iyagoo sidoo kale u shaqeeya xilli waxaa 7 subaxnimo soo gala qaar ka mid ah xoogsatada iyagoo ka baxa 6 maqribnimo halka kuwa kalena ay soo galaan 6 maqribnimo kana baxaan 7 subaxnimo walow qaar ka mid ah ay qabaan cabashooyin. We didn't want to work with union, honestly. haa dhabtii bilowgii waxa aan doonaynay in shaqaalaha dekedda aan gaarsiino ilaa iyo 10,000 oo howlaha dekedda ka shaqeeya kuwaas oo loo tababarayo ganacsiga iyo howlaha dekedda si dekeddu ay u noqoto mid caalami ah laakiin bilowgii waxaan ogaanay inay jiraan dad badan oo hoos taga ururka midowga xoogsatada waxa aan ku aqbalnay sidaas taasina waxay ahayd arrinta nala bilaabatay waxa aan doonaynaa in aan dekedda ay noqoto mid caalami ah oo heer caalami ku shaqeysan. But after we take over, we understand that there are a lot of people under the payroll of union. So we accepted to work with union, continue with union. dekedda ayaa ah mid qadiimi ah oo u baahan dhismo xoog leh iyadoo dhismaha iyo ballaarinta ay ballan qaadeen shirkadda ka howlgasha ee Albeyrag xilliga habeenkii waxa shaqeeya marsada xamar walow ay jiraan waxyaabo badan oo ka dhiman shaqada habeenkii mar dhowna ay dhameystirmi doonaan. waxa ku yaala dekedda Muqdisho saldhig ciidan oo qaabilsan ammaanka ka shaqeeya qaar ka mid ah ciidamada bileyska oo had iyo jeer u taagan ilaalada ammaanka waxa sidoo kale ka shaqeeya ilaalo Turki ah oo ka tirsan shirkadda Albeyrag kuwaas oo dhankooda ka suga amniga. waxaan wareysanay qaar ka mid ah shaqaalaha saarnaa maraakiibta iyo doonyaha ku xidhnaa marsada xamar anagoo weydiinay sida ay u arkaan imaanshaha caasimadda dalka ee Muqdisho. My name is Atif Kordi. magacayga Atif Cortez. I am from Syria. Syria ka imaaday. Captain of this vessel Seagull Cape. waxaan ahay kabtanka Seagull Cape. I have working here from 7 months. ilaa 7 bilood ayaan halkan ka shaqeynayay. This is second time for me this in Mogadishu. markii labaad aan hadda Muqdisho imaado waaya. And maybe I go somewhere to sometime go to Barbara and Bosaso, but this is second time for me in the Mogadishu. marar kale oo aan Berbera iyo Bosaso aan aado waa jiraan laakiin markii kow aan halkan imaado waa markaan. Yeah, now I think it's better because I had many story about this was her situation. It was bad before, but now for 3 or 5 years, nobody heard about anything, some piracy or some fighting or something. The situation is will be it's here better from before. wuxuu yiri markii aan halkan waxaan ugu soo dhiiraday waxa weeyaan amniga markii hore uu xumaa xagga burcad badeedka iyo waxyaalahaas wax xumaa laakiin xilliyadan dambe waxaan la socdaa oo dareensanaay in waxaas aysan jirin oo hadda soo wanaagsanaadeen xilligii hore hadda laga soo gudbay oo amniga ay fiican tahay. Mogadishu and now currently very good, better than before that. Muqdisho haatan waa ay ka wanaagsan tahay sidii hore balse xilligii hore amnigeeda ma ahayn mid la isku soo haleyn karo sidaa darteed xaaladdu iminku waa ay ka wanaagsan tahay xilliyadii hore
hadda waxaa ka socda horumar dhan walba ah. Dekadda waxaa yimaada maraakiib sida konteenaro, waxaa ka shaqo bilaabay shirkad cusub. Sidaa darteed wax walba waxaa sahlaya amniga. Markii hore hadda ayuu ka wanaagsan yahay. Now situation is better than before. waataa daawadeedii dhegeystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka aynu ka sameynayno dekada weyn ee magaalada muqdisho. dekada weyn ee magaalada muqdisho sidoo kale waxay leedahay qayb dhakhtar ah oo lagu dabiibo islamarkaana wax loogu qabto dadka sida emergency-ga ama degdega ay wax kusoo gaaraan. qaybtaasi waxaa ka shaqeysa dhakhaatiir kala duwan. markana maamulaha isbitaalka waxaanu kula kulannay qaybta isbitaalka isagoo naga warbixin doona qaababka ay u shaqeeyaan iyo weliba kiisaska ugu badan ee la kulmaan. qofkan shaqaalaha dekada ka shaqeynaya wuxuu dib baxay u dhigi jiray hadda laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin labadan sano oo meesha yani ay shaqeynaysay oo heleen gargaarka degdega ay heleen waxaa maarata isha dadkii ayay maarata u suurta gashay waxyaalaha dadka ugu badan kiisaska aan qabno waxaa ugu badan dhaawacyada dadkan dad shaqaala wey waxay ku dhaawacmaan marsooyinka meelaha shaqada ka socdaan ay ku dhaawacmaan lambarka shaqaalaha lambarka ugu badan dhaawacyadana waxaa weeye waa laba qayb wey waa baabuureyga iyo dadka xoogstada ah waxaa soo raaco kaleeto shaqaalaha kaleeto oo maarata ii sheegeen oo maarata dawliga ah. intii aan u hurgelayay hawsha dekada waxaan la kulmay maamulka dekada muqdisho oo ila wadaagay qorshayaasha horumarineed ee dekada muqdisho iyo marxaladihii ay soo martay. dekadu marba waxay soo joogtay meel sanadba sanadka ka dambeeyana waxaa la sameynayay horumar runtii la wada og yahay oo la taaban karo. dekada muqdisho 2013 waxaa laga hirgeliyey oo ku guuleysanay in uu ka howlgalo systemka liner oo linera waaweyn oo adduunka jira ay ka howlgalaan oo ka shaqeeyaan badeecaduna ay si toos u timaado meel kasta oo adduunka laga ay badeecad diyaar ku tahay Soomaaliya laga rabo inay taas u timaado. 2014 dabayaaqadeediina waxaa lagu guuleystay in dekada muqdisho uu ka howlgalo kambaniga Alpayre oo aad maanta ay arkaysaan in dekada gacanta ku hayaan howlaheeda inta ugu badan sida operationkii samaynta servicekii iyo wixii dekada ay howlihii dekada laga ay qaban jirtay ama ay qaadan jirtay. dekada waa kaabayaasha ugu weyn ee dhaqaalaha wadan uu leeyahay lagu kobciyo si caalami ah waayo badeecada dadkan ay u baahan yihiin oo dibadda laga keeno iyo badeecada dibadda looga baahan yahay oo loo qaado wax la dhoofiyo wax la soo dejiyo. marka taas ay waxay ku abuurantaa in ay dhaqaale badan u kobciso wadanka. waxay ku xiran tahay habka ay dekadaha u shaqeeyaan waa inay awalan haystaa dhamaystir qalab oo in ku noqoto dekad sidaan la socdo. marka taariikhda oo gaaban muddadii gaabneed ee 3 sano ku dhaweyd ee aan meesha u joogay dekadu culays fara badan ay qabtay. magaca dekad way ka ahayd laakiin imkaaniyaadkii ama waxyaabihii qalabkii u baahneed ee dekad ku noqon lahayd ma aysan haysan oo burburka wadanka guud ahaan ku dhacay 20 iyo dhowrka sano ee dagaalada sokeeyay jireen ayaa ayadana dhinaceeda ka qabsaday. sidaas daraadeed ayaanu ku dadaalnay in ay soo tiigsato in dekadaha caalamka ama kuwa dariska kuwa gobolka ay la standard noqoto. weli waxbaa u dhiman runtii waxaase la dhihi karaa waxa u dhiman waxaa la hayaa jidkii ay ku imaan lahaayeen oo si dhow loo hayaa. dekada in la ballaariyo way u baahan tahay waa loo baahan yahay ka mid tahay waxyaabaha dawladdu ka shaqeysay oo laga shaqeeyo lagu guuleystay ka mid tahay oo hadda looga fadhiyo waqti dhow in laga howlgalo. waxaa ka mid ah waxyaabaha dhiman haddana meel fiican jooga qalabaynta dekada
iyadana waxa weeyaan in dekada la qalabeeyo oo qalabkay u baahan tahay waa waqti dhow la sugayaa oo waxyaalo loo fadhiyo heshiiskana uu qayb ka ah oo taabanaya heshiiska ka mid tahay hawlaheeda dekada marka intaas oo dhaafo waxa weeye systemka iyo nidaamku mar walba wuxuu la mid noqonayaa oo loogu talagalay inuu la jaan qaado dekada caalamka daraasad dheer aan ku soo bilnay waxaan dareennay inay u baahan tahay in loo helo si degdega in qalab la qalabeeyo dekada si ay dhaqaalaha waddanka aada ugu sii kobciso shaqadeedana ay u yeelato nidaam iyo qaab ay u yeelato waxaan bilownay intaan joognin inaan systemyo container siteka ay ka mid yihiin container in badeecadda lagu keeno oon furfur lagu keenin si ay uga badbaadaan badda ama inay kusoo qoyaan ama inay dhibaato kale ku gaarto sidaas daraaddeed badeecaddii oo sideeda oo wanaagsan ayaa caalamka daafihiisa kala gedisan qofka uu keensan karaa containerada aan bilownay faa'iidooyinka le taas waay laakiin markay tahay badeecadda furfurka iyo waxyaaba noocaasa suuqyo gaara lagu xidhnaa laakiin maanta adduunka shantiisa qaarad meeshuu rabo ka keensan karaa oo container line ayaa ka shaqeynaya alxamdulilah taasi ayadoon stranger iyo qaab lahayn qalab wax lagu dejiyana aan haysanin nidaamkaasna uu caalamkii 20 sano aad u soo kobcay u soo kordhay ayaan waxaan bilownay inaan hawshaasi aan ku dhiirigelino ganacsatada Soomaaliyeed tusno faa'iideeda wayna bilaabatay dowladda federaalka ah gaar ahaan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka Soomaaliya ayaa wada dadaal dib loogu howlgelinayo dhawaan dekedihii uu dalku lahaa laguna horumarinayo dekeda udub dhaxaadka oo ah dekedaha Soomaaliya waxaan ka fikirayaa dekedihii hore Soomaalida ay lahayd meeshii doonaan baa ku yaalaan in ay wasaaraddu isku daydo inay wax horumar ama ay daraasad runtii ka ogaato oo la yiraahdo maxay u baahan yihiin lagu horumarin karaa wax horumarina maxaa lagu soo kordhin karaa horumarkooda laga shaqeeyo waayo dekedahaasi iminka waqtigooda runtii jireen ay dayacnaayeen la odhan karo badankoodu ay dayacnaayeen ama aanay horumar la taaban karo oo qorshaysan oo dowladeed aanay haysan marka in la yiraahdo bal mar dambe la isugu dayo in dib loo fiiriyo dekedihii runtii waxyaabahan jecel waxaa ka mid ah dekedahaas in loo helo dad aqoon u leh ama ciddan doonadan la kaashanaya inaanu ka helo macluumaad waafi aanu ka helo markaanu macluumaad waafi ka helo xaaladda ay hadda ku sugan yihiin inaanu isku dayno wixii aan ku biiri karnaa inaanu u raadino wixii taalkayga insha Allah kii September ee dabayaaqadii sanadkii tagay markii shirkadda Albeyrag la wareegtay howlaha marsada xamar waxa kurar ku yimid dakhliga dhaqaalaha ay soo saari jirtay dekada Muqdisho xilligii hore dowladda dakhli yar ayaa ka soo gali jiray dekada hadda dakhligaas kor ayuu u kacay waana mid sii kordhaya dowladda waxa aan siinaa 55% dakhliga marsada ka soo xarooda oo aysan ku jirin kharashaadka ku baxa isla dekada excluding all the running costs and investment costs. So government is really making much more money than before. dawladda ku sheegayo in xataa qaar cusub laga fikir karo dekada soo xeebaha Soomaaliyeed ku yaala in laga fikir karo marka kuwa hore loo hormariyo xaaladooda hal loo ogaado haddii qaar cusub lagu dar karo in lagu daro Muqdisho waa caasimad xadaarad fog ku leh caasimadaha qaaradda Afrika iyo waliba adduunka oo dhan halkan aad arkaysaan waa dekada weyn ee magaalada Muqdisho goordhow waxaan rajaynaynaa inay la mid noqoto dekadaha horumaray ee caalamka intaan barnaamijkan la mid ah mar kale hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo caasimad mugle iyo waliba horumar baahsan
وهجاك داود يلا حنشاء الله هنا تكبجتين مقال كاس قروح بدن اللي قصوا دياري دكدة مقالة مقدشو وحنا هاي دكدة مقالة مقدشو إنه تهاي أن مال عادي مهم وقاه بالشدة الصوماليات هدي قلنا وطردن كجناحسجة طبعا مقالكي هذا وحنا كده وانا السنة ما أتكده هنكرتين سيدا أي شقة وكلا وضان ضد الصوماليات قبرد أوله إنه كشقيان دكدة مقالة مقدشو مسؤولين هذا الذي واسيدا وكلا أو برنامج قريب كهذا دكدي يسيدا أي تهلو ذاك هي بالشدة الصوماليات iyo sidoo kale tawriyaheena ee naga diyaarisay muuqaalkaas quruxda badan ee jeclaysatay inay la wadaagto bulshada Soomaaliyeed dekada magaalada Muqdisho iyo quruxdeeda waxaan jeclahay inaan intaas barnaamij ku soo gabagabeeyo daawadayaal insha Allah hadduu Ilaahay idmo asbuucida soo socda waa hadii aan noolnahay waxaan jeclahay bal magaalada Muqdisho xeebtii liido sida ay ahayd iyo sida dad badan oo Soomaaliyeed ay ugu haminayaan sida ay u egtahay inaad barnaamijyada dambe aad ku daawo doontaan idanka Ilaahay daawadayaal waxaan idin ka raali gelinayaa barnaamijka horumarka dalka inaad qadka telefoonka aad uga soo qayb qaadan jirteen oo ra'yidiina aad ka wanaagsan aad la wadaagi jirteen dhammaan ummadda Soomaaliyeed aad fays u gudbi jirteen si aad ugu dhiirigelisaan horumarka dalka ka jira iyo sida uu muhiimad noogu leeyahay dalkeena in horumarkiisa aan qayb ka qaadano insha Allah waan idin ka raali gelinayaa mar labaad barnaamijyada dambe insha Allah iyo xeebta liida ayaa noo balana iyo meelo badan oo aad ugu heli doontaan oo dalka Soomaaliya kamid ah iyo sidoo kale idinkoo insha Allah aan qadka telefoonka sidii caado noo ahayd aan idinku casuumi doono oo qof walba oo Soomaaliyana aan soo dhaweey doono daawadayaal waxaan idin ka raali gelinayaa barnaamijka horumarka dalka inaad qadka telefoonka aad uga soo qayb qaadan jirteen oo ra'yidiina aad ka wanaagsan aad la wadaagi jirteen dhammaan ummadda Soomaaliyeed aad fays u gudbi jirteen si aad ugu dhiirigelisaan horumarka dalka ka jira iyo sida uu muhiimad noogu leeyahay dalkeena in horumarkiisa aan qayb ka qaadano insha Allah waan idin ka raali gelinayaa mar labaad barnaamijyada dambe insha Allah iyo xeebta liida ayaa noo balana iyo meelo badan oo aad ugu heli doontaan oo dalka Soomaaliya kamid ah iyo sidoo kale idinkoo insha Allah aan qadka telefoonka sidii caado noo ahayd aan idinku casuumi doono oo qof walba oo Soomaaliyana aan soo dhaweey doono aan idinkaga mahad celinaynaa la socodkiina iyo daawashada barnaamijka horumarka dalka barnaamijka waxaa idin socodsiinahay anigoo Xanaan Shidana dhanka farsamada waxaa iga caawiyay walaashay Faiso iyo Maxamed iyo Yuusuf Garabey dib intaan hawada u kulmi doono Soomaaliya dhamaantina isku duub waxaan kaga tageynaa Soomaaliya nabad iyo nooli kulantile dawladii iyo shicib dumar iyo rag dawladii iyo shicib dumar iyo rag Soomaali way isku duubanto dan loo dadaalayaa Soomaali way isku duubanto dan loo dadaalayaa diidayo shaqada loo dareeray daawanayo diidayo shaqada loo dareeray daawanayo wadalkaagii doqonyohow wadadkaagii dabaalyohow wadalkaagii doqonyohow wadadkaagii dabaalyohow wadigniine isdarye